jiritaanka Somaliland ayuu halkan Somaliland بلادنا نحبها نعشقها بالأرواح نفديها jinsiyadiisa Soomaalinimo ayuu ku faana Somali baan ahay diridaba ana leh gaarisa ana leh waxa lagu ciilay xadhig iyo caburin maxallaygu xidhaya xagtir layga dhigaya ee lay xanibaya oo lay xaganaya laakiin xabsigu ima hayn karo qalbiga iyo maskaxdu xor baan ka ahay qalbigayga maadaama uu xor yahay maskaxdeedana dadka uu wax u qabtay xataa madaxweyne waxba uma qaban kuwa waalan ee uu u gurmaday halkan ayuu ku xidhan yahay geedkan jirridiisa ciid buu ku cunayaa lug baa go'an 20 sannadood ayuu ahaa xanuunka dhimirka kuwa baahan ee uu caawiyay iyo kuwa xanuunsanaya ee uu caafimaadka la doonay wanaaga uu sameeyay ee uu ku caawiyay boqolaal qoys weli dawladdu may dhiirigelin taa beddelkeedana xadhig iyo ciqaab ayay uga dhigtay waddankayga xoog badan xeelaadu jecelahay waddankayga xoog badan xeelaadu jecelahay laygama xigsanayay jirbaanu qubayaa boolisku waxay u geysteen gafaf sharciga ka hor imanaya inanbuu dhacay inantii waxay nuuday tuug dabeedna ina yar baa yidhaah lagu cabdimaalig ha ku qaylo annaguna waan karsinay inta badhada qabatay ka toognays waxaa la soo xidhay iyada oo aanay cidina soo ashkatayn waxaa la soo xidhay iyada oo waaran maxkamadeedaan la haysan waxaa la baacsan jiray waddooyinka cabdimaalig oo la eryanayo ayaana nahay inaan soo maraa dilaacayo asan awal aan xaqiiqa sheegaysa hadda xagayga u saarado maanta hadda xagayga u saarado waa badbaadinaysa askarta eryanaysana waxay ku leeyihiin anu wax kama sheekaysan faqasti babadmeedis intaasay doodinayaan hal abuurihii barnaamijka kaalmee kuwan ayaa la leeyahay isaga maanta kaalmee kan madaxweyne siida waan ku barayaa siida madaxweyne wariyaha siida waxa waayey oo ooyaya 200 qof oo waalan oo xanuunsanayay oo uu qayri uga shaqayn jiray kuwa ku saamax hadduu wax sameeyo baanka waxbuu dhigtay credit buu leeyahay kreditkii uu lahaa in la eego marka la isu jaro ilaahayba xasanaadka iyo dee sayaadka qofku sameeyo waa la soo eegaa waagogii kii haddiiba koroo yahay Itoobiya ka dhacaysay waa ninkii keliyaha ee suxufiga ahaa ee ka hadlayay buu ahaa ee gurmaday markaa nin la dhayalsan karo ma ninkaas wuxuu leeyahay mudnaanshiyo in xuquuqdiisii loo soo celiyaan muddo badan hadda waa xukunnaa intaa hadda ilaa cafiyo madaxweyne waxaanu ku leenahay ilaahay ha ku cafiyo عفي صوفي ترى 4 jeer ama 5 jeer baan warbaahinta ruucan inta jeer aan hadalay waxaanu madaxweynaha Somaliland ka codsan madaxweyne ninkaas wuxuu ee samafalaha عفي صوفي madaxweyne عفو صوفي qof waa la diidi karaa laba waa la diidi karaa toban waa la diidi karaa laakiin madaxweyne waxa leenahay haddaan gobolkii tog dheer naga aqbal arrinka maanta aan ka hadlayno ninka wariyaha ee samafalka waxa naga banaanaday gaaf weyn waxa naga dhindaaday wax badan tabaal khayr badan baa naga maqnaaday waxaad ku daawan doontaan barnaamijka qareenka qaranka maalinimada axadda habeenka ay isniintu soo galayso saacadda bariga Afrika markay tahay 10 iyo 5 daqiiqo oo habeenimo